عليكم. مقعد محلنا عبد آدم كوسار وكم مقعد أنيو ذكي. أنا كم حاجة youth chairman 15 ward. محانا ركتين كسعودار بريهن 15 ward برا إنه شرينا هاي إبو كجرو. إبكاس ومدة فرب بدنا هايستي. جدك وجدك كصباح لامرود وأنا 15 كب district hospital 15 primary 15 girls جدك دباتال وقوي وبزنس سنتر بعشرة أياك سعتي جدك وهلاوي سيجا واحدة لقبت لواجي أنا كاس local bounce بين هجاجنة local bounce أم باي دتك الساعدين هاي دراهم رتركتالا كان bounce ولا يحقق سيجا دي بالس يكبيو سنة تستو كونتراكت أيالو سوقاتا مارم سيجا بنقول شوي ولا يتجي ما حدا هنيسافرتن أنا كا بربرهن إن الله من ولا مريو أياهنا فوريتان يهذا اللي بحضر موامرين جيت في محين قلت سيجا دي إنك حضرته تكاميه لا يعرضه ماموين كأن بوجد بنانك كوكذا ناين يعانيه إنك عرضان حافظيه المه راين وجيجين إنه كله هرجب يا أسماء يا ألجي وحنون لقد حوار ما كان تشني أنا كم حنا رني لكن أكشن إن قانون peaceful demonstration أنا كونا وذنو the support of the community دولة ده أنا وقفين Constitution of Kenya Article 37 peaceful demonstration is allowed أنا كان شرعي مال ما نوابد Constitution قال رعني مداخل اللي قصوا دورت الميجا يا إمادن Minister of the Road of County ما يجي أن سوقي واحد بانك قبنا Minister إلا محوله لسه نو مجرته County Road معه أنا كنا ما نقرأنا إن ده County Road ورانا وياك كنت تكون قاعدين أنا تفيد روad مركي وحن هذا الأمر محان رجني أنا كدنتاينا إنه يكون جرته جد كثونو له جديو أنا هذا نلنا هان يددوينها ما يجي جو جد كسارن أو نبكي قو وأني هرملية كاونتي ومكي إمام بحنا وحبك مرهم يكنا وينوش يجنا وحبنا ومحيان أنا كمان تروح أمين ثنا هي وأنا كان أحان اللي أنت إجان هرود أمين ثنا هي وهرب الآدم دعالي إنه جد كاس والشقة قبته لامي ونصار وواي مجالات اللامي قالوا هو رصعه كاونتي مرسين أتجا يعني سه حشب وليفتين لامي جان أرجع أتجا يعني أوكي ثنا إنه نوض ميترو ثنا إنه نوض ميترو أيام ديار ونحي السلام عليكم مقعي وانا استاذ فارح موليد حكومة على البرازة في يوث سكرتري جنرال ان سلو تشيرمان كشيغي وارون ان انا كا حدي ان هاي ريبوليفتين مانتا كاونتي جوفرمنت جارس وحبكم هاي سنة واقي هرب بيلان ودوميني مانتا ندر محانولو داري اني جيتك امريني oo dhalintayna ilaa bilcaantii ku day mareysay inay siiga madow laga dhigo oo qof contract ugu soo siiyo jidkii intuu qabto uu haleeyo dhalintii buliftiin waa kan chairmanka uu weyn yahay hal qof oo reer buliftiin oo job opportunity ka hela Garissa County malahan maxaan rabnaa hadda arintii laameyda Mheshimiwa Aadan Barre Ducaale laamey muxuu nooga soo qaaday province ilaa ay buliftiin noo keenay tan hadda aan ku dagaaltamaynana Aadan Barre shaqo kuma laha ee county government Garissa ay shaqo ku leh maxaan rabnaa inaan baaq u dirsano sidii Soomaali horaan ay u tire baahida ku cabataa baa laga ridaa Mheshimiwa Aadan Barre arintaas shaqo kuma liid waan ognahay laakiin maanta waan ku soo cabanay haddaan nahay dhalintii buliftiin maxaan rabnaa inaad jidkaas anakoo ku bareyno inaad wax nooga qabato inaad na caawiso sidii aad noo garab istaagi jirtay haday iskuul noqoto haduu barbaro noqoto inaan maanta noo garab istaagto ayaan rabnaa gabanaha Garissa County sidaad meeshan ugu xirtaan wali taaganahay meeshan wali ku xirnaanayna laakiin waqti ay jiri doontaa inaad iska soo furi doono hadaad u maleeyna dhalinta buliftiin in la kala gooynayo hadaad u maleeyna dhalinta buliftiin in sidii hore ay too way iska bedeshay maanta hal indaan leenahay
halkaasoo indhaha aan leenahay maxaa way maanta mheshimiwa aadan bare ducaale ayaan hoostiisa taagannahay sidaan uga soo hagarbaxnay 2017 ilaa 2007 ayaan maantana ayaan rabnaa inuu noo garab istaago weligiisna uuna garab istaagi jiray cali bunow countiga askarta aad isticmaalayso iska wad shalay ilmahayni xalay way hurdi waayeen tiya gaas ayaa lagu dhumiyey maamooyinkii way hurdi waayeen wiil baa hadda sidan aan hadlayno isbitaal jiifa askarta intay imaadeen aad soo diristay aad intay imaadeen county commissioner uu weyn yahay ayaa dhalintii la dilay oo isbitaalle ay yaalaan waxba kama qabno ana ka isdhigna maanta meeshaas adigoo maanta dhalintii iftiin markii la isku barbar dhigay national government iyo county government wax aan barbar dhigo aan sameeyay markaan sameeyay wax qof oo maanta aan dhigi karno hal iyo laba waan ka soo waayay national government ayaa maanta yaa nooga badan wixii ay noo qabteen maanta tabti ayaan ku xirannahay walaalow askarta aad soo isticmaalaysa soo isticmaal hana la dilo laakiin tan kama daba harayno jidkaasna halkii qof oo furay waa mheshimiwa aadan bare ducaale shaqada kuma lahan baryada aan maanta barayno inuu soo garab istaagayno aadaan ugu rajaweynahay hadduu la soo garab istaago walaalow banaanka naga mar anaga maanta waan ka imaan baxne shalay way noo imaadeen dadkii aad soo dirtay waxba niima qabanayna anako afkii governaga ku hadlaynay dhehen afkooda ka dhehen clipka waa la hayaa maxaan kaloo isku sheegaynaa booliftiin boqolkiiba boqol way kusoo dooratay boqol iyo boqolkii way kusoo dooratay maantana iyada oo xun hadday biyo la-aan noqoto hadday caafimaad noqoto iyukaa maad shaqo la-aan hadday noqoto iyukaa oo xun aadan bare waan ogeyn in wixii loo daba istaagay oo la qodqodaayo wixii fidmo la gelinayo wixii alla wixii cambaarees lagu samaynayo maanta ogaanay inay tahay waxqabadkiisa aadan bare maanta ogaanay inay tahay waxqabadkiisa ayaad u cambaaraynaysa waxqabadkiisa u cambaaraynaysa waxqabadka u cambaaraynaysa maanta ana reer buliftiin waan aragna horaanna waan ogeyn laakiin hurdada waan ka soo kacay ma yeeli karno mana yeelayno shaqadii hadday noqotay in yaale hadday noqotay maanta heblow area fulan MCA qofku u dhaho ana qori maanta hadday noqotay dhalinta buliftiin chairmankooda weyn waa kan anaga bariyan ka taagannahay jini iyo shaydaan wixii la qore maalin ahayn isku yeelin aadan barow inaan noo soo sidan aan kugu cawadiran inaan nugu umaataan rabna walaalow macaanow waan ogaanay maanta wixii lagu daba taagan yahay inay tahay waxqabadkaada Razak Ibrahim maxaan ku magac dheerayaa bilibili I think dhibaatadan way jirtaa oo buliftiin dhibaatadan waa dhibaataad bilaabato ma waa dhibaato soo jirtay I think dhalin badan oo la isticmaalaya jirta buliftiin oo qof la arko chairman leh oo meel arko la geynayo waxa lagu cunay chairmanka buliftiin aniga aaminsanahay 10 sano ku jiro waa ninkan chairman kale oo aan qabno ma laho mudana aan soo weynaa oo mudana aan daro ducaale aadan bare laami adigu ma dhista gaaris waxaan kale waxay ka jiraan malaha soo adigu ma ku sugeynaa saaxib ila wadada noo dhisto digan dawladana ila garab aan naga siiso security askarta dawladda waxna naga qabato yaa rabnaa waana lagu xadgudbay naloo ma turin been baa naloo sheegay doorashadii tan ka horreysaa naloo sheegay ilaa korkora in laga dhigi doono laamey buulooyinkii hadda la soo dege inta baadiyaha soo xoola beeleen yaa kulli barbaraya laamey ee maraan barbaro laamey yaa maraan kulli anigaa gaari ku maray odayaal baana meeshii nalooga yeeroon aadan barbaro weyn baan arkayna ama anag dan naga gasho iftiin dan lagama gelin waa la iska dhigay kuura markii la rabaa la imaada weliba waa nala caayaayo waxaa nala dhaha wax baa la siiya waa nala marsadaa waaga ilaa hadda aan joogna inta madaxan baan dooranayna waxay noo qabteen ma laho waxaan noogu daran wadada shilan mar rabna annaga wax shilan u baahana ma laho shilan kama rabna waxaan u baahana in wadada nool dhis oo laamay nool mariyo iskuun baan dhumiye ilmaha naga basal jiifa hadda saddex nug basal kaga jiifta oo sakraad oo naqaska ku dhagan aniga weyn hadda kula hadlay maalinka habeen walba satirsan baan ku saxdaa kan satirsan la dhaho oo 10 shilin aan ku saxdaa sida awgaas alla jibaan dhumiyay fuumbi baan dhumiyay waan ka shaqaysan laana ruux bacshara haystaan ahay wadadan qudaar ku gataa waka sida awgeed waxaan ka codsanaynaa madaxda aan soo doorana waxaan ka codsanaynaa sida ugu dhaqso badan laami ay noo dhisaan